السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحابتي الغالية اللي هانتي مركز دونك كجوجتان وولارك ورداده halkan naga daawato waa kanaalkina ama channelkina reer tufan hadaa ku xisbti kanaalka subscribe noo saar muuqaalka noo like reeya share gareeya la wadaaga asxaabtina fikirkaaga iyo aragtidaadu aad iyo aad muhiim nagu yahay xaq hoose nagu rab si kasta ay tahay asxaabtada qaaliga ay shalay ilaa maanta wuxuu soo maangalin sabab jira wadad insha Allah dul haro waxa rajeenayna xagga dambe ka ogaataan sababta jirtana si kasta ay tahay mar labaad muuqaal cusub waxaan ka wada hadalnaa wax weeyaan ugu dambeysay baraha bulshada gilgilay oo aad iyo aad u soo noqnoqonay aan horena uga hadlay in kana jecelaystay inaan ka hadlo sababtan uga hadlaya wax weeyaan aroos aad iyo aad oo qurux badan mudanna in laga hadlo aad iyo aadna ah very beautiful couple ama la maana aad iyo aad qurux badan waxaan Cabdirasaaq Shaxi xaaskiisa ayaan soo kale naanestiisa la yiraahdo edibsan oo ah in social media aad iyo aad aan uga YouTube aan kama Facebook aan kama laakiin waxay aan ka tahay barta Instagram-ka ku dhawaad 60,000 iyo 50,000 oo qof ayaa ku xiran waxay sidaa intaas oo dhan oo saxaaba maadaama iyadu lafteedu tahay qof celebrate waxa qurux badan in la xuso kaliya tama haboona in Cabdirasaaq anshaxo kaliya la xuso labadooduba in mustawa gaar la siiya aad iyo aad bay muhiim tahay si kasta ay ato arooskan wuxuu aroosadii kale fanaaniintu duwan dhiganayaan uu kaga duwan yahay waxa weeyaan aroos aad iyo aad qurux badan oo ka soo qayb galeen ku dhawaad adigu 10 fanaan 12 fanaan iyo dad aad iyo aad u tiro badan si kasta ay ato arooskaas wuxuu ka dhacay Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga ee dawladda Soomaalida Itoobiya oo ah xarunta si kasta ay ato arooskaas wax ka qayb galay fanaaniin aad iyo aad u tiro badan oo aan ka xusi karo masxiis sidoo kale Sultan Saraag ku haad Xarir Axmed Mukhtar Jigjigawi Faysal Munir adigu asxaab aad iyo aad u tiro badan sidoo kale Muuse Gaas Wadani oo ah adigu wiilka kaliya ee Jigjiga waqtigan xaadirka u kala go'an tahay Soomaaliland garan fanaaniinta tirada badan ayaa ka qayb galay arooskiisa hadaba asxaabtada qaaligay maadaama uu intuu hayeen reer Hargeysa isugu Cabdirasaaq Anshax xirftiisu waxa wiil reer Jigjiga waxa yani xeer ama dhaqan ah wiilku halku ka soo jeeday in arooska lagu qabto dad badan baa waxay isweydiinayaan arooskiisa muxuu ugu qabsan waayay magaalada Hargeysa waad ka jecel saaraan fariya anu tusaalahan hadii aan magaalada Hargeysa aan diganay oo qofka aan guursanay ama xaaskiga noqonaysa ay magaalo kale ka soo jeedo qasab waxa ah wiilku halku ka soo jeeday in arooska lagu qabto waxaan filayaa intaas inay ku filan tahay يعني إنه تفهم كفهمتين سكستي عطوا إن كوحدة حديقها جيسك أيو قيب كاها Cabdirasaaq Anshax wali waxa actor kooga kaliya ee waqtigan xaadirka haystaan ay ku faanana maadaama oo aad dadkii kale ay retire ama ay waayeel noqdeen wax weeyeen baalaha kaliya ay ku duulayeen xidigaha geesku hadaba sidoo wada ogsoontiin kooxda xidigaha geesku imka sidoo hore ma aha magacii oo kaliya ayaa sii jira sidoo wada ogsoontiin idunka hadaba dad badan baa wax isweydiinayaan maxay kooxda xidigaha geesku uga muuqan weyday arooskan Cabdirasaaq Anshax waxaan filayaa kooxda xidigaha geesku sababahaas oo dhan in laga yaabo qof kastaba horta noloshiisa isaga oo xora tusaalahan arooskayga hadii dadka igu dhadhow ka soo qayb gali waayeen horta dareen baa imanaya haduu Cabdirasaaq soo qayb gali waayo laki ka soo qayb gali weeyo awal ka soo qayb gali waayo waxa la soo oranayaa maxay uga muuqan waayeen garbihiisa asxaabtii ka agdhaweyd marka hada something wuxuu baa jira Soomaali karan maadaama kooxda xidigaha geesku ay يعني قرب يقاشان اسكو هايين او اي حق هايين انه كسو اقمودان Cabdirasaaq Anshax kulli wuxuu baa jira waxa jirana hore Soomaalidu waxa ugu maamada war jira waxa kaaro iman doona wax kastana xaga dambe ku ogaan doona insha Allah dula heerada soo kale waxaan filayaa inuu fanaan kaliya ka joogay fanaankaasi waxaan filayaa inuu yahay Cabdiraxmaan Caydiid oday sida igu maqaala in kastoon muuqaaladiisa ama muuqaal uu isagu leeyahay aan arooska ka dhex arag laakiin asxaab khaas oo ii dhawaaya waxa sheegtay inuu Cabdiraxmaan oday isagu laftiisa uu joogay soo kale waxa moodabrihi ugu dambeysay kooxda xidigaha geesku in laftooda uu gaab soo kala galay oo aan sidoo hore isku ahayn kaliya ta waxaan moodaa meel kaliya ta oo magac iyo mushahar lagu qaato inay yihiin laakiin sidoo hore iyo si u dhowtoona ma aha xaqiiqatan kulli dad badan baa waxay isweydiinayaan kooxda xidigaha geesku maadaama ay ahayd yani koox aad iyo aad legends oo fankoodu heer sare yahay maxaa sidoo hore ka bedelay maxaa soo galay maxaa adigu fankoodu hoos u dhigay maxaa isku tiirsanaantoodii hoos u dhigay kulli Soomaalidu waxa ku mahmaahda leader xawaalo qoodeen qurun buu dhacay bi inay yani buunbuuniyeen oo ay iyaga dhexdooda gaab iyo adigu fadqalalo ay soo kala dhex galeen sababta ugu weyn inay taas tahay ma filayaa laakiinse waxaan filayaa kooxda xidigaha geesku in aanu yani ahayn sidoo hore ay ahaan jireen waqtiyada kamid ah ilaa 17 ilaa dhiinka horaantiisii waxay ahayd koox aad iyo aad legends oo lagu tashan karo oo fanaaniin kale hadii dalka dibadiisa ka imanayaan gobolada inuu dhow Soomaaliya ka imanayaan
maybe in magaalada Hargeysa lagu soo tashado kooxda xidigaha geeska ayaa idinkaga horeyso idin ku soo dhaweynaysa ayay ahayd yani kooxda xidigaha geeska laakiin sidoo hore maaha waxaan filayaa in yani sumcadii iyo fankii magaalada Hargeysa uu kaliya ku soo beeshumay fanaaniin dhowra oo aan ka xusi karo qamar suugaan soo kale aan ka xusi karo adigu sultaan siraar laftiisa oo u soo digarobtay bariyo ugu dambeysay magaalada Hargeysa haddaba aan weeyaan waxa mawduuca ka bixin arooskan horta marka koobaad waxaan ugu hambalyeynaa arooskan iyo aroosideen guursaday waxaan idin leenahay yani gurigiina guri khayr wala lagama waayay gobanimo ku aqal kala anyway ma jeclayna hadalka badbadiyo laakiin ujeedada ugu weyn ee halkan soo istaagay wax weeyaan inaan u hambaliyeeyo horena anigoo ugu hambaliyay arooskiisa Cabdirasaaq Shax iyo xaaskiisa ayaan ama dumaashidayo ayaan horena waan sheegay waxaan ku leeyahay social media in badan waa laga hadal hayn doona dacaawa naga hadal hayna sababtan u hadal hayna wax weeyaan farxadeeda iyo inaan jawiga quruxda badan ay ku jirto aan ula qaadano asxaabta qaaliga waxay kaga tagayaa wanaayo muuqaal ku xiga inteedan kanaalka ka bixin waxaad ku codsanayaa inaad subscribe noo saartaan muuqaalka noo like gareysan share gareysan la wadaagtaan asxaabtina fikirkaaga iyo aragtidaadu aad iyo aad buu muhiim u yahay xaq hoose nugu reeb waxaan leeyahay see you soon insha Allah